maanta waxaan qaadanaynaa cashar aad iyo aad muhiim u ah. haddaba inta aanan bilaabin casharkeena maanta aan isla aragno saddexdan. kan waxaa loo yaqaanaa free zone ama clutch, waxaa ku shaqo leh lugta bidix oo keliya. kan waa breega, kanna waa sheelaraha. breega iyo sheelaraha waxaa ku shaqo leh lugta midig. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, ma qasab baa in aan qabto sheelaraha si aan u dhaqaajiyo gaariga geerka? mararka qaar qasab ma ahan, sababtoo ah marka gaariga uu yaalo meel siman ama meel dalcad ah, keliya waxaad u baahan tahay in aad si tartiib tartiib ah uga soo kacdid kalaajka ama friizoonka. haddaba aan isla aragno middaas. marka hore waxaan gelinaynaa marshada geerka koowaad. intaas kadib waxaan dejinaynaa handbrake-ga. kadib waxaan si tartiib tartiib ah uga soo kici doonaa friizoonka, gaarigana wuu dhaqaaqi doonaa. haddaba aan isla aragno. sidaad u jeedid gaariga wuu dhaqaaqay, lugta midigna meesha taal waa u jeedaa. keliya waxaan tartiib tartiib uga soo kacay friizoonka. haddii aad u baahan tahay barashada dalwarnimada, waxaad ku soo biiri kartaa iskuulka Confidence Driving School. wixii faahfaahin dheeri ah waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarka profile-ka saaran.